saxaafadeedkan aanu qabanayno wuxuu ku saabsan yahay baaq nabadgelyo nabadeed aanu u dirayno dadka walaalaha ee isku laayay soonahan ay iska galaan Nugaal iyo Sool Boocame area dirirtu ku dhaxmartay waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo waa dad walaalaha wixii dhintay waa tacsiinina wixii dhaawacana waxaan leenahay ilaahay ha u boogadhayo waxaan ugu baaqaynaa in la joojiyo colaadaas waa dad walaalaha ceel iyo cusbo wadaaga xigta ah isu seediya ilmaabtiya ilmaadeera wax walba isu abtiya marka waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo waxaanu kala ugu baaqaynaa isimada iyo culimada iyo waxgaradka iyo waayeelka reer Puntland inay hawsha iyada u kacaan oo wax ka qabtaan dawladuna haddii alla yiri wax la wixii kaga beegan oo iyada aan waxba kala harayn awoodeeda way saaraysaa si nabadii halkaas ay uga dhacdo nabad waarta looga baahan yahay waxaanu ku baaqaynaa dagaalka isaga ah in la joojiyo colaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho wixii dhacay way dhaceen waxaanu doonaynaa maxay oo ku baaqaynaa oo amraynaa oo codsanaynaa in la daba qabto wixii hadda ka dambeeya in xabadu halka ku joogsato shuruud la'aan baanu ku baaqaynaa wixii ka dambeeyana haddii alla yiri ay noqoto sulx iyo wanaag la isugu yimaado oo ay dawladuna ka geysato wixii kaga aadan dadkuna u kacaan oo nabadgelyada la ilaaliyo insha Allah way dhamaan doontaa wixii maxay tahay wadkii galay baa ku dhintay sabab shaydaan baa ka adeegay dabcan marka waxaan ku baaqaynaa oo rajaynaynaa hadalkaygan marka aan dhamaysto oo la maqlo in ay istaagto colaadaas iyo dirirtaas intaasaan ku baaqaynaa aad iyo aad baad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.